الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدومك برلمانك قدوميها قدية دورشدة اللي معنا شرفت له اللي معنا فدرالك سنة الرضا سياسيين صحافة ورهذا بلشدة كل يوم وحنكون سلام إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحن هل كان تعسي أقدر آيا ضدكي لبدأ بري الشقاقة سعودي بيدبك سعودي كل انتي إنه إلهي نحرستي جنة جيو ضدكي إهلكي أي كل انتين سمري إيمان كسيو أنا كنا سمري إيمان نقصي أنت دعوة عنا إلهي عافية وحنسجوني أي كذا تعسينا يا مرحوم عبد الشكور ولكن أذكر كلية لها أنا كنا عن سجوني مدبنا نسمع قال صاحبنا هاي إلهي نحرستي جنة جيو وحوها وحيالها للشيخ وعلماء الشيخان lagu garto qofka ehlu jannaha iyo ku dhintay asagoo islaax iyo dhibaato iyo mushkiladii jirtay inuu dajiyo rabo iyo dhintay naxariista janna Allah geeyo walaalkeen bacdigiisana ilaahay nama firneeyo waxaan ilaahay ka baryayaa dadkii iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagay inuu ilaahay samir iimaan ka siiyo waxaan kaloo fariin qaas u dirayaa شعب وينها كونفور قلبي ميل والباقي جوغان دبت يقدر مقالة كستا يجوغان هيك كونفور قلبي وعدد نبضيت وعدد دولديت وعدد كأغبضا معمل قبرية الصومالية شعبية أغبضا وحي كجران دروف أذك وأمن له ودقال له وبركع له ودبات له وحي أباهين دولة عدالة oo istaagto oo ka bixisa dhibkan oo habeen maalin ka warqabto waxa ay ku bariyeen iyo waxa ay yihiin iyo waxa ay joogan shacabka reer koonfur galbeed waxaan ka codsanayaa inay nabadda ka shaqeeyaan maanta waxa wax taraya waa nabad inta noolna la badbaadiyo inta dhimatayna ilaahay u raxmado intaas kadib waxaa farxad ii ah maanta inaan hortiina imaado xildhibaanada sharafta leh aniga oo raadinayo in sheegi rabo hadal jeedintaydii aan ku raadinayo musharaxnimadayda ahayd aan rabay inaan ku shaqeeyo 4 sano hadda ay doorataan haddii ilaahay yiraaho aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan hor istaago sida ogtihiin musharaxa maanta oo kale wuxuu u baahan yahay inuu helo waqti uu ku sheego qodbadaas maxay tahay waa waxa uu qabanaya 4 sano oo muhiimad u leh maanta waxa loo baahan yahay waa intaas sida la sheegay saaxiibada ay hore u sheegeen CV-gayga nuqulkiisa sida sharciga uu yahay waxa haayo guddiga doorashada nidaamka doorashooyinkana waxay tahay CV-ga waa la badiyaa waa loo qaybiyaa xildhibaanada si ay u haystaan marka haddii ayna dhicin waa dhici doontaa CV-gayga oo la qaybiyey waa heli doontaan insha Allah laakiin sida saaxiibada ay hore u suubiyeen oo ay sheegeen wixii ay soo qabteen anigana ugu yaraan waa inaan sheegaa wixii aan soo qabtay waxa la yiraahdaa geedkii qayrka ka booda bootin ma ahana xaliisho male aniga waxbarashadayda waa ilaa heer jaamacadeed dawladda intay jirtay waxaan soo noqday macallin iskuul oo aan ku soo maray gurmadkayga qaranka wixii ka dambeeyay waqtigayga intaas ku ekaa ciradan tirada badan siyaasad weyn ma ihi laakiin waxa la galay burburkii 2007 January markii xamar la tagay oo dawladii Cabdullaahi Yuusuf Allah u raxmaday madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxa la ii magacaabay maamulka ku-xigeenka furdada xamar ninka ugu horeeyay maamulka ugu horeeyay oo furdada xamar la geeyay baan ahaa maamulka ku-xigeenka furdada xamar baa la magacaabay
لبكون يسديدي حكومة نور عدة الله دورو نور عدة وحالي مقعابي وزير كشقادة يارمها بالشدة أنا وزير كشقادة يارمها بالشدة يا وحال جبوتي وحال اسكو صدر دولة اسكو دركة هاي وحال مدحوين اللي قد مدحوين الشيخ شريف وحال رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد لبكون يسقالكي وحال مقعابي وزير كدكدها يجاريد كبدر لبكون يتوانكي إسلا عمر باهدنا وحي مقعابي عمر عبد الرشيد إسبدركي حكومة وزير كحنانة حوله لبكون كو يتوانكي حكومة فرماجو مدحوين فرماجو مركز براي مينسترها وحان كان نقضي وحال مقعابي وزير كقرشينتي وزير كحجينتي قرشينتي إسكاشيك عالميك وإسكا عزيلي وحال مقعابي مركز إسكا عزيلي كدب وزير الدولة بوسطة إسجارسينتا ورفافينتا يدلحيستا لبكون أفرية طوانكي وحالي مقعابي وزير الدولة كاللوميسي هاديرتان وحالي مقعابي لبكون طوانية تدودي وزير الدولة كنعسيقة هذا وجود بيسينا وحانها وزير بيها وزير كإنرجي خيرات بيها وأنا إسكا عزلي بالكور حلوان فدرال كاهن واهي هدرتان وحيالي للشيء أي ودتك أي كجدوي دتك إلهي أنا كجدو أنا حلوان أديكو كلو كلي جينان هاي هذا أنا هلا أنا حلوان بانا سيفي كاسواي وحروا أنا ندين سوق بيو قرش هوليت كيجا عن ربعنا كل شقي أفرتان سنة هذا دورتان هدو إلهي يراهو مدن يالي مروين حلوانada sharafta leh waxa mudnaanta koobaad ee amniga sidii hore loo sheegay hadii aanan amni helin siyaasadna lama helayo horumarna lama helayo dawladnimada lama helayo waxa dawladnimada aasaaska oo ah waa amni marka priority-gayga amni weey waxaan xoog saari doonaa si dhaqso lehna aan uga howlgali doonaa isufridda jidadka koonfur galbeed laga bilaabo waxaan kaloo xoog saari doonaa la dagaalanka al-shabaab oo ku midoobay kulligiis deegaanada koonfur galbeed sidii looga dagaalami lahaa loo saari lahaa priority-ga koobaad ee noo tahay waxaan doonaa haddii ilaahay yiraaho degmooyinka oo ay haystaan oo ka tirsan sida Sablaale Kunturwaarey Bakool hal degma laga haystaa oo la yiraaho Tieglow degmooyinka saas oo kala oo xarumaha waaweyn oo degmooyinka la haysto inaan koow ka bilaabno degmo ahaan banayno aan isu furno degmo kasta iyo jid kasta ay soo maraan oo dadka reer koonfur galbeed ay awood u helaan inay deegaanadooda ay ku tagaan baabuur aysan u raacin diyaarad insha Allah hadii ilaahay yiraahdo waxaan ku dhax shaqayn doonaa siyaasadda amniga annagoo kaashanayno dawladda federaalka dawlad goboleedyada midowga Afrika IGAD iyo beesha caalamka waxaan ballan qaadayaa inaan golaha wakiilada koonfur galbeed hor keeni doono istiraatiijiyad arrimaha amniga lagu fulin doono xildhibaanadana ay u gutaan waajibaadkooda sharciga amniga guud ee reer koonfur galbeed markii la diyaarinayo istiraatiijiyadda amniga ay soo gudbinayso xukuumadda aan dhisi doono haddii ilaahay yiraahdo marka ay doorataan waxaa la hor keenayaa golaha wakiilada baarlamaanka federaalka Soomaaliya asagaana ansixinayo istiraatiijiyadii amniga lagu suugi lahaa reer koonfur galbeed ama jid ha noqoto ama degmo ha noqoto ama tuulo ha noqoto ama meel walba ay tahay ha noqoto taasaa lagu suubin doonaa haddii ilaahay yiraahdo waxaan dhisi doonaa ciidamo agab leh tababar leh tababaran sida loola dagaalamo shabaabka iyo cadowga haysta waxaan u dhamaystiri doonaa agabkooda iyo xuquuqdooda waxaan kaloo ciidan nabadda ilaaliyo oo police ah oo magaalooyinka meel kasta ay joogaan iyo gudaha magaalada iyo suuqyada iyo saldhigyada ka shaqeeyo oo shacabka la shaqeeyo yaan suubin doonaa haddii ilaahay yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh
arrinta kale ee mudnaanta weyn aan siin doono waxay tahay horumarinta dhaqaalaha haddii aan dhaqaale la helin oon dhaqaalaha la hormarinin wax nolol oo jiraysa male horumarna ma jiraayo mudnaanta labaad waxaa noo ah horumarinta dhaqaalaha inaan hormarino dhaqaalaha koonfur galbeed kobcinta dakhliga iyadoo la hagaajinayo nidaamka canshuur aruurinta xoojinta la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan la dagaalamaynaa insha allahu musuqmaasuq waxaan aruurinaynaa dakhli iyo canshuuro ku filan ee koonfur galbeed khayraadka yaallo u qaybsami doono insha allah waxaa sidoo kale muhiim inoo ah dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ay yeelan doonaan dekedo garoomo diyaaradeed oo casri ah dib u dhis waddooyinka burbursan iyo isgaarsiinta hadduu ilaahay yidhaaho sidoo kale waxaan fiiro gaar ah iyo ahmiyad siin doonaa horumarinta ganacsiga waxbarashada beeraha xoolaha kalluumaysiga maalgashiga dadweynaha midka caalamiga ah iyo dhiirigelinta fursadaha shaqo garsoorka iyo cadaaladda mudanayaal iyo marwooyin garsoorka waa arrinta ugu muhiimsan ee lagu soo celin karo kalsoonida shacabka sugidda amniga horumarka dhaqaalaha xasilooni siyaasadeed lama heli karo haddii uusan garsoor uusan jirin cadaalad waxaan dhisi doonaa garsoor caadil ah oo loogu kala xaqsoori doono bulshada dhexdeeda oo lagu kalsoonaan karo waxaan ballan qaadayaa haddii aan ku guulaysto xilka madaxweynenimada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee 4 sano soo socoto waxaan dhisi doonaa garsoor madax bannaan leh agab dhammaystiran iyo howlwadeenno tababaran waxaan ballan qaadayaa in aan bulshada koonfur galbeed ay heli doonto garsoor caadil ah oo lagu kalsoonaan karo ayagana ay ku kalsoonaan karaan wax walaali wixii maxkamad iyo garsoor ku filan ay reer koonfur galbeed ay ku qanacsan yihiin ay heli doonaan ayaan ballan qaadayaa insha allahu tacaala haddii ay doorataan mudanayaal iyo marwooyin dib u heshiisiinta iyo adeegyada bulshada waa qodobkayga afaraad dib u heshiisiinta xildhibaanada sharafta leh bulshada dhexdeeda aan heshiis ahayn isuna uurfiyoobeyn kama jiri karto amni sugan bulsho sideedaba wuxuu amni iyo nabad iyo nolol ka jiri kartaa inay isfahmaan oo isu uurfiyoob yihiin oo ay heshiis yihiin oo ay walaal yihiin oo isku dan yihiin oo isku mid yihiin oo isku dawlad yihiin sidaa darteed mana gaari karaan horumar dhaqaale iyo mid siyaasadeed haddii aysan fiyoobidaas jirin dib u heshiisiinta iyo nabadaynta bulshadeena sarraynta sharciga iyo hagaajinta maamul dowlad goboleed waa 3 arrimood oo aan kala harin muhiimna u ah xukuumadda aan dhisi doono kuna kasban doono kalsoonida shacabka reer koonfur galbeed adeega bulshada dib u heshiisiinta iyo nabadaynta sarraynta sharciga waa hanaanka bulshada meel ku wada nool ay ku wada dhaqanto hagaajinta maamul dowladeedka waa horumarka dowladnimo waxaan xukuumadda aan dhisi doono intii karaankeenna ah u fulin doonaa adeegyada aasaasiga ah ee lagama maarmaanka ah waxaan fursad shaqo u abuuri doonaa loo siman yahay aan u samayn doonaa dhallinyarada waxaan ballan qaadaynaa horumarinta iyo sare u qaadista aqoonta dumarka iyo u sinaanta fursadaha shaqada diyaarinta iyo horumarinta dhaqaalaha waxaan suubin doonaa haddii ilaahay yidhaaho diyaarinta iyo horumarinta qoraalka afka mayga kana shaqayn doono sidii loo dhigi lahaa manhajka waxbarashada deegaanada maamulka koonfur galbeed sida ku qoran dastuurka
دستورك دولة الصومالية وحقوقا أفك الصومالية وماي يمحاتري سيدا الدكتة وحان هذا أخينا إنه والله قري وأفك محاتري لما قرن أفك مايغا وحان نقوم دونا هذا الدورتان مسؤولك وهري أو استاغ أو وحكة تكب حيو إن أفك مايغا لقرأ سيدا كان لو قري يقولنا قبايو يقولنا هلو يقولنا شقين إن شاء الله يعني نقوم دونا arrimaha qurba joogta mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan ballan qaadayaa haddii aan ku guulaysto madaxweynenimada koonfur galbeed in aan si weyn u soo dhaweyn doono kuna dhiirigelin doono qurba joogta ka soo jeeda koonfur galbeed inay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarinta koonfur galbeed iyo inay ku dhiiradaan inay sameeyaan maalgashi buuxdo oo dhinac walbaba leh waxay xukuumadayda aad u dhisi doonaa howlgelin doontaa qabanqaabo shirweyne oo ay isugu imaan doonaan dhammaan qurba joogta reer koonfur galbeed si ay wax uga hayaan fikir talo maalgashi ugu soo biirin lahaayeen deegaanada koonfur galbeed waxaan tegi doonaa meel allaale iyo meesha ay joogaan qurba joogta koonfur galbeed oo adduunka daafaheeda ah annaga oo wafdi ah oo aan kula kulmi doonaa oo aan ku dhiirigelin doonaa inay dalka dib ugu soo noqdaan oo ay maalgashtaan oo horumariyaan oo aqoontooda iyo waayo aragnimadooda iyo wixii ay adduunka ka faa'iideen ay ku soo celiyaan walaalahooda iyo deegaankooda koonfur galbeed xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay ku dadaali doontaa shaqayna doontaa isu soo dhaweynta xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyadoo aan la baalmari doonin dastuurka dalka lana dhowraayo nidaamka federaalka ee lagu heshiiyey waxaan xoojinaynaa xiriirka dowlad goboleedka ay la leedahay dowladda federaalka iyo iyadoo la tixgelinayo danaha qaranka waxaan mudnaan gaar ah siin doonaa wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyadoo laga fogaanayo isbarbaryaac lana xoojinayo midnimada iyo wadajirka dalka si dib ahna loogu hiranayo dastuurka federaalka Soomaaliya waa ogtihiin mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan nahay qaran Soomaaliyeed waxaan nahay federaal maamul goboleedyo jiro maamul goboleedyada waa federaalka wuxuu hoos tagayaa dowladda federaalka waxaa jiro xasilooni darre iyo kalsooni darre siyaasadeed waxaan ka shaqayn doonaa haddii ilaahay yiraaho ilaahay u guuleeyo inaan soo celiyo midnimo siyaasadeed oo xuquuqda ay koonfur galbeed lahayd oo ay ku lahayd ama adduunka ha noqoto ama dowladda federaalka ha noqoto ama dowlad goboleedyada ha noqoto waxaan ka shaqaynayaa inaan soo celiyo insha Allah oo wax laaliyo waxa xaq u lahaydeen aan ka shaqeeyo adinkoo garab taagan inaan heshaan dhisid xukuumad loo dhan yahay waa qodobkayga 7 waxaan ballan qaadayaa inaan dhisi doono xukuumad tayo ay ku dheehan tahay maamul wanaag iyo karti ay u dhan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed si himilo wadaag la hiigsanayo gaaristeeda loogu guulaysto waxaan mudnaan siin doonaa in laamaha hay'adaha dowladnimada koonfur galbeed sida sharci dejinta fulinta garsoorka kaabayaasha mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaa soo hartay kaalintii golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed kaalintiini waaye mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh haddii ay ii doorataan xukuumadda waxay tixgelin doontaa kuna dhaqmi doontaa nidaamka kala socnaanta hay-adaha dowladda baarlamaanka xukuumadda garsoorka wax isdhexgalaya ma noqon doonaan wax kala soocan
وهي والباب الشقدي إذا يقبسنا يسوع والشقدي نعوم مدح بنانتين حكومتنا الشقدي إذا يوم مدح بنانتها برسول كان الشقدي يسوع مدح بنانين نقدم إن شاء الله سيد الله أنت فلنت شرع دجنت يجرسوك وحين حكومته حرمين دونتا حسانة حلبانة إيوه دور كحلبان كشرع دجنت وحقه له حلبانة شرفت له مولا ريال المروي وحن حكومته إذا هدي إلهي له يقول له وحن إلى دونا حرمة يحسانة يحقوقه وحلبان كليه حلبانة كونفور كالبيت runtii waxay ku soo shaqeeyeen hadda ka horna waa sheegay waqti adag iyo duruuf adag iyo nolol adag iyo amni darro tiro badan waxay xaq u leeyihiin inay xildhibaan wuxuu xaq u lahaa ay helaan markay sidaa tahay waxaan suubin doonaa hadduu ilaahay yidhaaho oo ilaahay ugu guuleeyey xildhibaanada sharafta leh oo koonfur galbeed inay xaquuqdoodii mishaar oo ay lahaayeen ay helaan ayadii inta ay haysteenna loo kordhiyay hadduu ilaahay yidhaaho oo ay ka badan heli doonaan xildhibaanada sharafta leh waxaan kaloon idiin ballan qaadayaa haddii ilaahay igu guuleeyo oo aan madaxweynaha koonfur galbeed ii doorataan ammaankiina in nin kasta oo xildhibaana dowladda ay bixin doonto 2 askari xaquuqdiisa loo tababarayo oo xildhibaanka uu xaq u leeyahay inuu ilaaliyo sida xildhibaanada dowladda federaalka ay xaq u leeyihiin mushaarkoodana ay bixinayso dowladda xildhibaanada sharafta leh waxaan kaloo ballan qaadayaa si dastuuriyan ah annagoo la kaashanayno cid kasta oo ay khusayso iyo dastuurka iyo guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada inay noqoto waqtiga haynta xilka xildhibaanada in la waafajiyo madaxweynaha iyo xildhibaanada inay waqtigooda isla dhammaadaan waqtigoo kalena isla doortaan haddii ilaahay yidhaaho annaga oo la kaashanayno guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh iyo cid kasta oo ay khusayso annagoo la kaashanayno inuusan aynan imaanin mar dambe vacuumkan xildhibaanada iyo madaxweynaha ah oo ay noqoto xildhibaanada inay doortaan madaxweyne waqtigooda ayagana ay iskumar doortaan waxaan si hagar la-aan ugu dadaali doonaa in si joogto ah ay u heli doonaan xildhibaanada xaquuqdooda iyo sidoo kale tababaro kor loogu qaadayo tayadooda aqoontooda baarlamaaneed si baarlamaankeenu u noqdo mid la jaan qaado baarlamaanka gudaha iyo kuwa caalamka ugu dambeyntii waxaan hadalkayga kusoo gunaanadayaa in aan mar kale si sharaf iyo xushmad leh idinkaga codsado inaad kalsoonidiina isiisaan xildhibaanada koonfur galbeed walaalahayga runtii muddo dheer baan ka soo joognay waa gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan inka codsanayaa oo mar labaad inka codsanayaa oo mar saddexaad inka codsanayaa inaad codkiina isiisaan oo idoorataan markaa idoorataan intaan aan ballan qaaday iyo ka badanba aan inkugu shaqeeyo oon ugu adeego dadka oon dalka ugu adeego haddaan isu kiin sheego waxaan ahay nin garaada waxaan ahay nin daacada hogaamiye daacada hadduu jiro waxaan ahay hogaamiye daacada waxaan ahay oon u soo baxay ma soo raadinin shaqo waa haystay kaalay koonfur galbeed shaqo ka soo raadso uma soo bixin xildhibaan baan ahaa wasiir baan ahaa waxaan u soo baxay oon shaqadeydii uga soo tegey oon u imid waxaan aaminsanahay inaan hawshaan wax ka bedeli karo waxna ku dari karo mudanayaalay marwooyin aadaa u mahadsantihiin xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanayaa codkiina aadaa u mahadsantihiin Oh,